بسم الله نحمده ونصلي على رسول الكريم. anigoo ah maxamed xasan iyo tiimka iskuulka waxaan kusoo dhaweyneynaa iskuulka Somali Community Learning Center ee Malaysia. marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad u sugnaatay. marka xigta waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay iskuulka asaaskiisa ugu horeeya walaalkeen Mr. Cabdifitaax Farey, maamulka, macallimiinta iyo dhammaan waalidiinta. iskuulka wuxuu soo maray heerar kala duwan, maanta wuxuu taagan yahay heerkii ugu sarreysay. saasay tahayna waxaan ku sameynay iskuulka dib u habeyn dhinacyo badan taabanayo sida dhismaha, maamulka iyo waxbarashada. iskuulka waxaan dib u habeyn ku sameynay dhinaca madarasada diiniga ah, taasoo insha allahu tacaala dhalinyarada iyo caruurta ay ku xifdin doonaan qur-aanka kariimka. sidoo kale waxaa diyaar ula ah macallimiin bari doona xadiiska, tafsiirka, fiqiga, caqiidada, akhlaaqda iyo siirada nabigaba. sidoo kale waxaan iskuulka ka marnayn caruurta ama qaybta lagu xanaaneeyo ilmaha yaryar kindergarten. waxaa lagu xanaaneynayaa iskuul qaybtani ilmaha u dhexeeya da'dooda 4 sano ilaa 6 sano. waxaana lagu bari doonaa aasaaska barashada sida carabiga, ingiriiska, xisaabta iyo sayniska. waxaa iskuulka aanan ka marnayn oo kale qaybta dugsiga dhexe iyo dugsiga sare. dugsiga dhexe waxaa loogu talagalay in lagu barbaariyo ilmaha da'dooda u dhexeyso 7 sano ilaa 13 sano ama fasalka 1 ilaa fasalka 6. waxaana la bari doonaa maadooyinka asaasiga ah sida Islamic, Arabic, xisaab, English, Science, barashada computerka ama ICT-ga. dugsiga sare asigana insha allahu tacaala waa fasalka 7 ilaa fasalka 9. waxaana ka marnayn meesha qaybtii oo IGCSE-ga ama GED-ga, qaybtaasoo ah fasalka 10aad ama fasalka 11aad oo ilmaha loogu diyaarin doono inay jaamacad aadaan si ay u helaan jaamacado. insha allah iskuulka waxaa kaloo ku diyaar waxbarashada dadka waaweyn sida insha allah in luqadda ingiriiska ahayd qaybaheeda kala duwan iyo barashada computerka oo dadka waaweyn ah inay bartaan, ay ku xirfadeysaan, ay ku shaqaystaan. insha allahu tacaala waxaan iskuulka marnayn xirfadda gacanta in dadka lagu bari doono insha allah. waxaa iskuulka ugu diyaara macallimiin khibrad u leh waxbarista insha allahu tacaala, caruurtana ka dhisi doona dhinaca diiniga, dhinaca akhlaaqiyan iyo siday ula macaamili lahaayeen dadka kaleba. بالله توفيق ومهتنتهن. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.